Waddanka Singapore ayaa waxa ay xornimada ka qaadatay waddanka Britain oo wada xukumaysay iyaga iyo Malaysia. Ra'iisul wasaarihii Singapore ayaa waxa uu u ololeeyay inay la midoobaan Malaysia. Jasiiradda ayaa waxa u badnaa dadka Chinese-ka ah, halka Malaysia ay u badan yihiin Muslimiinta qowmiyadda Malayga. Ra'iisul wasaaraha Singapore ayaa wuxuu aaminsanaa in Singapore ay tahay jasiirad yar oo aysan awood u lahayn inay iska difaacdo khataraha dibadda ah iyo in dhaqaalaheedu kobcayo haddii Malaysia ku biirto. Laakiin danka Malaysia aad uma jeclaysan fikraddaas sababtoo ah waxa ay keenaysaa in tirada Chinese-ka waddanka joogay ay badato oo awoodda xisbigii Malaysia xukumayay ay yaraato. Iyadoo ay mudaharaadyo iyo lagdan siyaasadeed uu ka dhexeeyay Malayga iyo Chinese-ka sababtoo ah dhaqaalaha badankiis waddanka waxa ay gacanta uga jirtay Chinese-ka laga tirada badan yahay, halka Malaygu ay u badnaayeen beeraley aan dhaqaale fiican haysan. Haddaba goortay isku biireen Singapore iyo Malaysia sanadii 1963, mashaakilkii ka dhexeeyay Malayga iyo Chinese-ka waa sii socdeen. Dowladdii Malaysia iyo Singapore waxyaalo badan ayay isku qabsadeen oo ay ka mid ahayd arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha maamulka. 7 August sanadkii 1965 ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Malaysia Tunku Abdirahman u soo jeediyay baarlamaanka inay Singapore cayriyaan oo laga saaro midowga Malaysia. 2 maalin kadib, baarlamaankii oo ay ka maqnaayeen kuwa Singapore waxa ay u codeeyeen in Singapore la cayriyo. Ra'iisul wasaarihii Singapore ayaa waxa uu sheegay inuusan isagu rabin inay ka go'aan waddanka Malaysia, balse lagu khasbay oo laga cayriyay inay la midoobaan. 20 sano gudahood ayay Singapore ka mid noqotay wadamada dhaqaalahoodu horumaray, waxa ayna Singapore ixtiraamtaa dadka Muslimiinta ah ee Malayga ee looga tirada badan yahay jasiiraddaas. Waxay siiyeen xilka madaxweynaha waddanka Singapore oo 10 maalmood ka hor loo doortay gabar lagu magacaabo Xaliimo Yacquub inay noqoto madaxweynaha waddankaas Singapore.